maamulka Puntland si toos ah ayuu uga jawaabay markii ugu horeysay hadal baraha bulshada qabsaday oo ahay inay dowladda Soomaaliya ciidamada Puntland u diiday baasaboorkii lagu dhoofi lahay kuwooda ku soo dhaawacmay dagaalka lagula jiro arxanlaawayaasha Daacish si toos ah oo muuqaal ah ayay uga jawaabtay wasiirkii warfaafinta maamulka Puntland asigoo qoray isnaybar aasaa iskula baacinaya ayuu meeshan ii soo taagan yahay odayga waxaan kala fahmi waayay qorayga inuu Daacish u sito iyo inuu filla Soomaaliya martiisa uga soo gami doono inta horta waa kala fahmi waayay odayga sniper oo isla soo kala baxay walarta marka ugu horeysa muuqaalkii ka jawaabitaanka in ciidamadii dhaawac ahay loo diiday baasaboorkii dhibaatadaana dowladda federaalka ah ay ka shaqeyday bal muuqaalkii aan wada daawan sir maalmahan waxa baraha bulshada haysatay arrin oranaysa ciidanka Puntland dhaawac special care ka u baahday dibadda u baahda dowladda dhexe federaalka Soomaaliya caqabad bay ku noqotay in baasaboorada u fududeyso diyaaradihina permission ay ku soo galaan ay siiso arrinta maxad xaqiijinteeda naga wadaagay aad iyo aad baad mahadsantahay Nuurow bilowgii dagaalku markuu ahaa oo aan operationka bilowgiisa ahayd waxaan u baahanay diyaaradaha banaanka aan ka keensanayno inay permission dalka ku soo galaan maartay hay'adda aviationka Soomaaliyeed maartay controlka hawada baa shaqada kulli hooda permit ka bixinaysa kaadi marka muuqaalku horta waa dheer yahay sharciga Facebook ma ogola hal mar jumlad inta dhan in aan ku sii wada deeyo oo aad wada daawato muuqaalka muhiimadiisii iyo go'aankii rasmiga ahay waa noo dhiman yahay hase ahaatee qaybta koowaad ee muuqaalkayga ayaan ku qaadaa dhigayaa qaybta labaad ee muuqaalkaygana ceebta allaha asturo haddii aad maqli jirtay waxaan kuu wadaa sawir ceebta allaha astura ah horta sawir ceebta allaha astura ah daaha gadaashiisa lagu isticmaali jiray qof nool oo xabsi ka soo fakaday ma arki jirtay waxaan ku wadaa maanta sawir xabsi ka soo fakaday maanta ilma loo sheekayn maayo daaha gadaashiisana wax laga maamuli maayo Somaliland waa dowlad haddii aad maqli jirtay madaxweynihii maamulka Somaliland horta mas'uul kasta ee reer Somaliland ah wuxuu ku dhoofaa baasaboorka Soomaaliya hasaatee dadka waa laga qariyaa marka ay la kulmayaan madaxda caalamkana Soomaalinimay kula kulmaan sawir la isticmaali jiray laakiin xabsi ka soo fakadayaan ku wada maantay meeshaan fiil waxaa taagan madaxdii imaaraadka carabta iyo Cabdiraxmaan Ciro barta calaamaysan fiiri barta calaamaysan alaabti afar geeska ahayd oo suudadka ku dhaganeeday ee calanka Soomaaliya ahayd ayaa u dhagan odayga ilaa wana ceebaynin fashila dhacay fashil inna caadi ila dhacay horta odayga xiraarda kaasa markay la kulmayaan caalamka calanka Soomaaliya qaataan dhoocinlada iyo wiilasha reer fanaaniinta iyo oo Hargeysa taga calanka Soomaaliya lagu arkana xabsiga leenta lagu cabsiyaa horta dowladnimada Somaliland meesha ay marayso waxaa horta waa taasa ilaahay ku dhaarisay
horta dowladnimada ay noo sheeganayaan waa taasaa sawirkaas wuxuu ka dhacay imaaraadka carabta mas-uul kasta ee reer somalilan ahna waa istimcaali jiray sawirkan hase ahaatee dadka reer somalilan waxaa loo sheegi jiray in calanka somalilan meel walba lagu aado somalilan af ma lahan af somalilan la yidhaahdo ahi ma jiro baasabor somalilan la yidhaahdo ahi ma jiro calan somalilan la yidhaahdo caalamku ogol yahay ma jiro gadaal waxaa lagu wataa calankii tawxiidka uu ku cardhanaa horeyna waxaa lagu wataa marka caalamka la aadaayo calankii soomaaliya waa kaaya maanta madaxweynihii u xiran yahay oo imaaraadka la shiraaya soomaalinimow ku shiraa somalilan markuu yimaadana ou soo degaayo cigaal ka soo degaayana calankii tawxiidka uu gacanta ku wataa markuu imaaraadka ka deganaayana calankii soomaaliya uu gacanta ku wataa anu soomaaliya laakiin calankaana liigu dulmiyo uu leeyahay calanka lama taagi karo ceebtaasaa meesha taalla soomaaliya horta dhibku meesha dadka ka haysto fahanyarada dadka haysataa horta waa taayaa marba haddaad marka aragteen cabdiraxmaan ciro oo sito calankii soomaaliya ee imaaraad la shiraaya baasaboorkii soomaaliya ku dhoofaaya dadka caburinta ka daaya wareer somalilan oo adunkuna caqli yeesha bilaa caleegda bilaa caleeg caqli yeesha intaasaan idin leeyahay horta qodobkaasoo duubduub bartiisaan uga tegayaa waxaan aadayaa somalilan maana puntland aan aadayaa wasiirka warfaafinta si toos ah ayuu u jawaabay weliba dee maaragta maaqaan waxaa la yidhi maaqaan af waxuna xishoomiyaa maaqaane oday asigoo xishoonaya odayga asigoo xishoonaya odayga dadka caayi jiray dadka aflagaaday jiray dadka wuxuu raba dhihi jiray odayga asigoo jeejeesahaya odayga asigoo caytamaayo sooma hadlin maantay asigoo saatan madaxa oo u laalaado yah oo xaaladiisu aysan caadi yihiin uu soo hadlo horta bal muuqaalkii aan kuu dhammaystira horta diyaaradaha waan soo kiraysanay barmid bay u baahan yihiin haddana dhaawac falayd bay u baahan yihiin permission ay ku duulaan bay u baahan yihiin hawada Soomaaliyeed ku galaan marka anaga dhaawac naga qaadaan caqabada waa jireen laakiin waxaan u mahad celinaynaa dadku waa dad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waa dad hal luqad ku hadla hal midabka maarin dhalaalka ay leeyihiin hal diin bay leeyihiin oo waa muslim hal madhab bay leeyihiin oo waa shaaficiya hal dano geeska Afrika la yiraahdo ama Djibouti ha jooga ama Soomaaliya ha joogeen ama Kenya ha joogeen ama Ethiopia ha joogeen hal dano geeska Afrika la yahay habay ku nool yihiin odayga dowladda Soomaaliya inuu amaanana waa kari la yahay waxa laga leexleexa karin oo muuqda meesha yaaliin horta ilaahay ku dhaarshay odayga hal lagu qaato tariibkan inaan dowladda Soomaaliya waxba diidanayn meeshaasay ka caddahay laakiin libinta loo diidan yahay guusha loo diidan yahay runta ayaa la diidan yahay Soomaaliya ha israacdaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo idaawanaya fadlan muuqaalka iga sii share gareeya lee ku qabta page-kayga Abwaan Garaad Nuur Xuseen falowda ku soo qabta channel-kayga YouTube ee Hanmaal Media subscribe dhac ku dhaca gambalelka furta si aad u naqataan daawadaha ugu horeeya aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh